caawa kormeerka soo bilowday fiidkii oo taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo ka jawaabayo waxqabadkii taraafikada ciidanka taraafikada ay sameeyeen oo ku kormeerayo wadooyinka iyo asagoo ka raba inuu ogaado bulshada iyo waxa ay ka soo celiyeen feedback ay bulshada ka soo celinayaan caawa wuxuu kormeeray kontaroolada ciidanka nabadgelyada wadooyinka ee ka shaqeeya magaalada Muqdisho dhamaantood wuxuuna soo arkay shaqo aad u fiican oo bulshada ay u riyaaqday oo ciidanka booliiska Soomaaliyeed saas darteed taliye wuxuu garawsaday in ay ciidanka ka shaqeeyaan oo la baahiyo inay ka shaqeeyaan maalmaha ciidda oo soo socoto haddii Ilaahay idmo goobaha fantasiyaha ciidda lagu qaban doono insha Allah way ka howlgali doonaan waxa kale oo ay ka howlgali doonaan meel kasta oo bulshada ay ka dareemi jirtay cariiri iyo jaam fara badan oo ay bulshada ka weysan jirtay inay u dhaqaaqaan waxa uu xaqiijinaynaa inay maanta wixii ka dambeeyay ay ka shaqeyn doonaan ciidanka nabadgelyada wadooyinka meel kasta oo cariiri laga dareemi jiray sidoo kale taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed wuxuu kormeer ku sameeyay shaqada ciidanka qaybta waliyo cadde isagoo kula ballamay dardaaran adagna ku siiyay inay maalmaha shaqada oo ciidda soo socoto ay kala qayb qaataan ciidanka nabadgelyada wadooyinka ee qaybtooda ka howlgali doona shaqada adag ay bulshada u hayaan qaybaha kale oo ciidanka booliiska Soomaaliyeed ee qaybta guud ka tirsan sida bari iyo galbeed iyo bartamahana aaday dawlad shaqeeyaan ayagana shaqadooda inay laba jibaaraan taliyaha amar ku bixiyay